Go ahead. daawadayaal halkani waa shabakada caalamiga ee Puntland News waxaanu halkan maanta la joognaa wasiir dowlaha maaliyadda Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cismaan Saxardiid oo halkan isagoo ku jira dhakhtar oo xogay xanuun la soo kulmay wasiirka oo kamid ah wasiirada xukuumadda Somaliland ugu waxqabadka badan leh oo runtii aad uga dhex muuqda ayaa aad maxaytay dadka badan ee Somaliland ay ugu warwarayeen xiriir badan noo soo sameeyeen si xaaladiisa caafimaad ugu ogaadaan iyo meesha ay marayso marka waxaanu goosanay inaan u nimaadno isagoo weli xanuunsan laakiin aad u fiican oo caafimaadku wanaagsan yahay si isagu afkiisa uu ku ugu maartay mahadnaqo dadka u soo ducaynaya una sheego meesha caafimaadkiisa iyo dareenkiisa oo meesha uu marayo maanta halkan dhinaca ugu fadhiya marka wasiirka ayaan kamarada ku duweynaa isaga ayaana insha Allah idin hadli doona سيدنا الآن ما تصنتهاي نلقي صاحب هذا رسام من ملك استاذ شفت أنا قلت مركز وكلم بس كان يقولوا فينا ضد كيسو قدام بيسر كمان واحد أنت على مركب الحين أنا مقعد ما تندوا وقتها حال ده دون وإنك قاعد ما تنال أنا وفرنا الحمد لله إلهي مرفوع بالقعدة إلهي من الدعاني إلهي من يعني أنا مو محل غير عرفتي وقت هذاك ما صومري تقلين من فريس ينسلوا كل شيء يس الله قرطت ما عارفين حولي مركا حارس بايب باس يصير شري يعني هاي اللي اسمه أفرح هذا يا القلاي مثل سابق وفهم الكسر يلا قام باسترنا يلوسمي سي ديغو صعده سي ديغو صعده صح عندك لو حش لو حارطه هي نوش صح ما انت يقول لسان حفلتي تروح بدي انا تاغن اي يودع تو دخترك لي العرب صح سامر كما وحي عليك يمشي سي صح ما نكحيد دي نو كسو دفايو حقنا وصل دفايو بس الدكتور كان وين معضه مركي من يابو سامي معضه الدكتور كما كلا كاني وياركين وحيون ويعتين قمين صح ضدنا ويحيي ايغان خاطر قلوب بيسوتمي وخلص لقرتي ان يوم كبحي لو عشان كان دودك ورا يدول لي صوت حنونكي او يعني صقد وحان وحوان تلابه عن رجاجي كريم والله غلي مكان عادي عاد ده صدق ما والله ده هو تقول ده صار والله غلي وما أركي كرسان ما سوينا لوجا حالة تقولي مك عفمتك ورا ندين في عنتها يو الحمد لله بإذن الله كريم الله ما محنايا عادي عاد شعلنا نادر لو قلوا عاد محنقه توينه قربتشوق مدة شقين عاد بان مدة شقين جنس ساعات كوركبته استيد بدقية أو يوروب أو أمريكا استحملت تلفون هدية هبي وصور دعي نكى كوركم وسير كي كوركم عاديات يعني مسوكو كرسدا ومحنقية وحن عاديات ومحنقية شعور جمهورية الصومال يكون سود عيني من أول بيجي سود عيني لا تولو ينكي أو غالبا إلى سؤال شيء ولكن هذا أرس حرديد يحكي كل مدحوينه وصاحب لي كسان أنا برسل أنا واضح هذا لكن لو تشاري أي صاحب لي عاديات أنا مدحوينه أنا هو محمد هذا إذا الدين هذا إن ير دحاء محمد الناس الدعسي هلا إلهي هذه كعبة كسي واللي تعدوا بهانته وكل ما شاء الله الحمد لله بدون كريم هذا مرغوم هالنهاية أنا حاسك جينا ويتمي ويشوف ده عروتي إنها جيسي شوفته تذكي يو مرة والله جوه يا واحد وقتها ما كنا أول يوم بروح نكون أحسن انتظرنا مركين إسكت ده وقف مدول برنك استوينا جنب مركو حجانا ونسوق من الناس أقوى
weliba xagga qurbaa aadna waa laisugu gudbada waa ka horeysa marka aada iyo aada iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dadweynaha caanka ah ee ummaddeena leeyahay wasaraale ee soo hadlaysay hariya habeen maxaan ku dhahdaa qaar shicib oo iska shaqaalahayga wasaaradda yani aan loo marka ilaahay idigeena waxaan leeyahay idinka ajaarisiiyo hawshan dee qabanaynana qaar bay waxaad ku wada soo dacdaan oo hawshan badan baad gashay waxaan adduunkana joognaa waa inaan hawl qabanay dalkeena dhisano midaan maanta ilaahay maalintaa nafta ii daayeen maalintaan saa uga baxo hawsha iyo midka badan umangeliya waa intaynu dalka u joogna oo laynoo doortay madaxweynuhu noo doortay isagana dadku u doortay waa inaan wax qabad marka aad baan meel kasta dadkaa iga soo duceynayaan ugu duceynayaa dhammaanteedba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadeen intaas waxaa inagu dhamaaday barnaamijkii ama video yara koobnaa ee aanu ka dubanay wasiir dowlaha maaliyadda mudane cismaan saxardiid oo idin waramayey xaaladiisa caafimaad idinka waramayey oo isagoo halkan magaalada Minneapolis ee dhakhtarka Abbott Hospital ku jira xisada ujeedaan caafimaadkiisu aad buu fiican yahay waana nasiib badan yahay in la daweeyay oo xanuunkii hayay laga daweeyay laakiin dabcan xoogay waqti uu yara baahan yahay inuu maartay kasoo kowdo qaritaankii lagu sameeyey marka anaguna waxaanu u rajeynaa insha allah caafimaad ay baan u rajeynaa insha allah qaritaankiisina waa lagu guuleystay boqolkiiba boqol lagu guuleystay wuxuu u baahan yahay un xilli yaroo intaa meesha laga qalay ka bogsanayo insha allah waxaan arki doonaa isagoo hawshiisii ku jira mar kale oo siday ahayd halkay ahayd ka wada iyo si kasii badan insha allah intaan mar dambe kulmayno waa anigoo wariye Saciid Jamaale bahda Batrale News iyo magaalada Minneapolis. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.